مظاهرات وين وقاعد لو سوق مقابية يا كدعي كسور جد كحفيز كان يزور وزارة إنجليز كا أنا بتن داونس هالكاسو يسوي بعدين كمان كل هذا كإنجليز كذا كل ولا مظاهرات كان يا إيماني يحل مدحونها عصيبة دلك أمريكا كمية الكيسوادية كوشيء تطور ودن أو صوماليا كم تهاي إنه كم من وعين يسوق على دلك أمريكا كسيكم الجار مظاهرات كان يا سيدو كلا كدعي دلك أمريكا كي مقالوي كوين أو أيضا رئيس وصل بحدنا فربنا هذا بدك هل كان يسكوي من أيها واحد كاميرا الله نحكي هذا الله ذي نوع حكم ذا. ما تعرف قالوا شو؟ halkan waxaa isugu yimid dad badan oo Soomaali ah oo muslimiin ah oo Ingiriis badan iyo qowmiyado kala duwan ma ku muuqataa dadku inay common good ku walaaloobeen oo ay ku mataanoobeen so it's not nice. ما توصل أنا بحلينا كمظاهرات مدحوينها مريكا دونالد ترامب ممنوعين يضل تتوضل اسكنع إنه مريكا شو الآن. It's disgusting. He's demonizing people who have a lot of things going against them. We should be welcoming these people. We should be welcoming these people with open arms. وأنا مهم إني برلمانك هذا شو arrimahan ka dhacay Mareykanka because waxa Mareykanka ka dhaca waxa gaaraysa halkan dalkan caalamka dhan way soo xiran tahay. Everything that happens there is something that could potentially happen here. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo dhawaan iyadoo booqatay dalka Mareykanka ay dadka shacabka Mareykanka iyo Ingiriiska oo careysan yihiin gaar ahaan Ingiriiska dadka ku nool kadib markii ay ka dhiidin weyday cunsurinimada Donald Trump oo ku hayo dadka muslimiinta oo si ay hadalka u dhigeen. I want May and Trump to get the message that in unity we're stronger and we're not separate communities, we're one people world, and I'm not putting up with this and I don't want to be hateful and I don't want to hold hate in my heart. I want to spread a little bit of hope to say to communities that are being persecuted and not known, and I know what it feels like. My grandparents were in Auschwitz and I want to do it in their honour. So you have tomorrow 11 a.m. to Parliament and demonstrate, because if we don't fight now, we're going to have bans. We're going to have what is happening in the US with Donald Trump. Theresa May is just a British Donald Trump. Please. She is already presided over detention centres and brutal deportations and racist policies. That's her history. Because we are British citizens, but at the same time, we're proud to be British, at the same time Somali, Muslims. All these people you can see, they came out because they're against what Trump is all about. It's not about Muslims. Muslim ku kasoo horjeeda ninkan hadda la iska qabanin oo laga soo horjeesanina dib ku sii soconaya marka insha Allah inaan isu soo kaco nagala hadlo ninkan ku hadlay inuu khalad yahay dadka muslimka ala widu ala positive stuff meel walba joogno America be it ama Ingiriiska dhanka kalena waxaa socda petition ama codsi bulshadu ay codkooda ku dhiibanaysa si looga hortago Donald Trump inuu sanadkan gabdhamayaqadiisa uu soo booqdo dalkan Ingiriiska oo boqorada mara Ingiriiska la kulmo. Petitionkaas ama qoraalkaas faraha badan ee dadku ay codsiga ku soo dhiibteen ayaa wuxuu marayaa ilaa haatan 1 milyan iyo 200 oo kor u dhaafay. Maantana waxaa loo fadhiyaa inay aqalka baarlamaanka Ingiriiska iga dambeeya looga doodo oo doodaas ay furantay inuu yimaado waddankan loo ogolaado iyo in laga joojiyo. dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegtay qoraal ay
barta internetka gaar ahaan twitterka ay ku fidisay ayay ku sheegtay in Donald Trump uu imaanayo aysan marnaba suurtagal ahayn in Donald Trump waddankan laga celiyo daba dadka halkan ka soo qayb galay ayaa aad u fara badnaa waxa isu keenana waxay ahaayeen danta guud waxay u arkayeen isku dhaqan maaha isku diin maaha isku af maaha isku culture maaha inkastoo muslimiintu ay aad iyo aad ugu yaraayeen cabdixafiid maxamuud jaamac TV-ga Universal Westminster